أميركي ugu qatarsanaa ugu sharta badnaa ugu dhibaatada badnaa qawaariijta sahanka galgaduud iyo mudug geed u kala yaqaanay oo la duugay geeridiisaan ku wada magaciisoo saddexana waad iga rabtaa ciduu u dhashana waad iga rabtaa dagaal now socda hadda socda oo xabadiisu socoto qawaariij lagu soo qabtay dhaawacoodii oo ceeldheer hadda la geeyana waa ku dul istaagaya waxaan ku dul istaagayaa oo kale ku kale isu soo dhiibay oo xog bixiyay waxaan ka codsanayaa qawaariijtiyan wataa garbahan ku wataa dhaawacoodii meydkeedii intaad qabatay fiidiyogan meel walbaba la jir iga fogay qof kastoo mucaarad iyo muxaafida oo fiirsada fiidiyogan waxaan rabaa markuu warkayga dhageysto inuu meel walbaba ku sheer gareeyo iswarsi male warkaygu waa fadhiya soo dhawaada shalay dagaal baa dhacay dagaalka shalay dhacay waraaq weynaan wataa maanta dagaalka shalay dhacay guusha uu keenay ayaan kuu sheegayaa oo ka dhacay meeshaan la yiraahdo qaycad iyo bacadweyne aagiisa dagaalkii ka dhacayaan shalay ku wadaa guushii ugu weyneed ayaan ku wadaa maxamed bashiir muuse diini waa ninka xax ka siiya caad camaaro bacadweyne meeshaan la yiraahdo hareeri dheere meeshaan la yiraahdo qaycad meeshaan dhulkan mudug iyo galgaduud oo dhan isku dar ceelbuur garile waa ninka kaliya oo sahanka u qaabilsanaa qawaariijta meesha la sahminaya sahankeeda iyo warbixintooda iyo sirdoonkeeda keeni jiru ahaa dhulkana ku koray kuna dhashay maxamed bashiir muuse diini qawaariijka sahan ku haystay ma jirin ninkan qabiilkiisa waxbaha ku falinina horta waa nin habargidir waa soo gaabinayaa magaciisa intaasna u dhaafi maayo وانا أقانا هويديسنا waxaa la yiraahdaa xalwo muuse rooblaa la yiraahdaa kulli dad badan aan garan doona hooyadiisna waxaa la yiraahdaa xalwo muuse xuseen aan ka wadaa xalwo xuseen rooblaa la yiraahdaa hooyadiis waa ku daayeen ninkii qawaariijta ugu sahanka badnaa way shalay wuxuu ku dhintay qaycad maantana waxaa lagu duugay meeshaan la yiraahdo ciddiisu meeshay degan tahay meesha saa la garan doona meeshaan la yiraahdo waxaa lagu duugay meeshii caad u dhoweyd magaceeda sheegi maayo halkaas iga dhig rag badan oo isku cidna iga xanaaq doona wallaahi qawaariijta walaalkii hadduu yahay afeefaan soo gudubsada oo bilaahi hadduu ila dhasho waa soo gudbinaya inaanan qarinayn ilaahay baa igu og inuusan qarinayn ninkaas shalay maahane daraad ayaa waxaa laga soo diray maya shalay uu geeriyooda maalintii laba maalin ka hor shalay ayaa waxaa laga soo diray garile waxaa lii sacad dhaqdhaqaaqayso ay wadaan soo xaqiiqso soo hubso la yiri saddex cabdi bilo iyo wuxuu kala soo dhaqaaqay garile oo kala soo dhaqaaqay maadaama uu yahay ninka ugu sahanka badan ugu sirdoonka badan saddex cabdi bilo garile kala soo dhaqaaqay ninkaas asaga hamin hore markuu u soo hiday qaycad macuusleydii beesha saacada ku quraacatay oo la dhihi jiray maxay ahayd gargaar ashala ku quraacatay meydka iyo dhimashada gashay shalay nimankaas 20 way dhaaftay sida la ii xaqiijiyay aniga 20 way dhaaftay haddaysan 30 ba dhaafin waa sida boqolkiiba boqol ninkaas waa ku daayay mid kale oo amiirana waa ka isku soo dhiibay maanta nimanka la yiraahdo nimankii macuusleedii beesha saacad warbixintaas ayada waxa uu sheegay rag baan wacay wali boqolkiiba boqol lama siin rag saraakiisha wareysanaya laakiin wali waa sugayaa laakiin sir weyn u bixiyaa la yiraahdo nimanku inay baabiceen rasaas la'aan yihiin cunto la'aan yihiin kala fakadeen kulligood oo ninkaan soo gudbiyay la fiisana ula soo cararay dagaalka hadda socda aan ku galiyaa marka gabar aad u magac dheer oo wacaysla oo la yiraahdo Faadumo waxaa la yiraahdaa war magacii muxuu ahaa argabadhan magac dheer maxay faano guuleed magac dheer ragga dhirbaax jirtaan sir oo baraag leh baraagteedii dagaal xun ka socda waa faano guuleed magac dheer naag magac dheer daartay wax ragga wax dheerta faano guuleed baraagteedii dagaal xuna ka socda iyo meesha la geerilay waa lagu tuntay dhaawac iyo meeyda la soo qabtay 5 dhaawac oo qawaariijta hadda waxa la geeyay oo xabado xun ku yaalaan ceel dheer hadda la geeyay naaw wiliina dagaalkaas wuu socdaa la soco ogow aan ku tabinayo dhaawac laakiin ceel dheer la geeyay waa hadda aan kula hadlayo naaw ceel dheer la geeyay gabadhaas magac dheer oo la yiraahdo faano guuleed oo baraagta leh oo magac dheer
barteedii waa lagala kacay nimankaas gelina waa lagala kacay dhulka hawdka waniile iyo gariile iyo faano guuleed baraagtaas intaas bacagta lagu mariyay saakay 11 o'clock markay ahayd saacadu haanta waxa haanta caga dheere ay niman jidgooya oo qawaariisha galeen cagta lagu mariyay 12 doorno markay ahayd nina waa laga reebta dagaalkii ugu kululaa oo afarta geesa oo daacad laga yaa socda afarta maanta halka markuu ka dhaca birina xaqu ka dhacaya kaartada uu ku socdo waa ku faraxsana aniga halka maanta markuu ka dhaco kuwaas waa nasanayaan kuwa kala soo ibr gurmad baqawaariisha isku wiido waxay u barata ninka sarkaalka ah kaartadaas keenay waa u mahad celinaya markay maanta halkan laga baabacado birina halkaas laga baabacado de ibr ma dagaalami karaan de labada ciidanna way isku imaanayaan afarta koonana laga soo socda ogow kaartooyinka ciidanka rasmiga ninkaas bixiyay oo sarkaalka oo dagaalamaya anigu waxaan dhihi lahaa inta jaran laga dhigo markuu dagaalkan dhamaado guri weyn oo qasriga loo dhiso kaartaas ninka dhiibay oo xaggana ka soo dhirbaaxay halkaana ka dhirbaaxay maanta markay halkan ka nastaan xagga kale looga dhufto no nasiino no gurmada la yiraahdaa ninkaas qaabka jabhada loola dagaalo yaqaana qaab ciidanna uu tababaran yahay labadu wuu isku haystaa darajada general inta loo xiro guri weyn oo qasriga loo dhiso inkastoo Soomaaliya ay soo amaal gudin ragga sirdoonka iyo ragga kaartooyinka yaqaana iyo ragga dagaalada wax ka yaqaana iyo ragga geesiyaasha midna oo agtooda sharafkooda uu ku agdhinto oo ayagoo haysto uu ku agdhinto ninka sarkaalka laakiin ninkaas inuu yahay magac weyn loo yeelo ninka saddexda gees dagaalka ka wado maalin walba markii maanta laga dagaalamo garile oo biri laga dagaalamo qaycad la soo dhaafo oo waliba nimankii gargaar dhihi jiro saacad Siciid 1200 oo askari waay 500 na xariga laga jar maantay oo kala tababara waa 2000 oo macuusliya la tababara 2000 oo macuusliyo saacad Siciidka kaliya ah markay ilaa camaaro ku soo tubato bacad weyne areer dheere meesha la yiraahdo aagaas oo dhan markay ku soo tubatay dhulkii hawdka ahaa markay ku soo tumato waxaan rabaa xar dheerana in laga soo baxo lagu tunto waxa joogo dhan caad in la yimaadaan joog 10 ninaad joogta waardiya saddex waliba hamiinka ku soo haraan inta kale meel aadan ma aqaan warbixina rasmi aan ku soo gudbinaya dagaalkaygana uu bilowda fadlan xil guntada dhageyso rag badan oo saraakiil ayaa waxaan siiyay raggii ila shaqeyn jiray nambaradooda si dagaalku u fududaado anaa hawshu ugu adag tahay oo shaqadeedii badata si dagaalku u fududaado warbixin ay u helaan waxaan siiyay dadkii ila shaqeyn jiray nambaradoodan siiyay fadlan ragga qawaarista ku naxnool ama gabdhaha ku dhaxnool oo warbixinada soo dhiiba raggan teleefanadooda siiyay way siiqaanaan ha xifdiyeen magacyadooda yeesa sheegin intay nool yihiin fadlan ayagu ma kala yaqaanaan wax soo hadlaya wax kale aad iyo aad aan idin salaamayaa boqolkiiba boqol fiidiyogan taqabatina dhaafsho